Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena. Haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqato fadlan subscribe si aad ula socotid barnaamijyadeena dambe. Sheekadani waa sheeko dhab ah oo ka dhacda magaalada Seylac muddo ka hor. Waxaa iga sheekeeyay oo aan ka qoray Abwaan Saciid Biid. Abwaankii lahaa eryadiisu labaale waa hadal, hadba waa sugooniya. Sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Seylac waxay ka mid tahay magaalooyinka qadiimiga ah ee Geeska Afrika. Waxay soo martay marxalado kala duwan, sidoo kale waxaa ku noolaa qowmiyado kala duwan. Waxay caan ku ahayd Seylac dhanka ganacsiga. Reer Seylac waxay samaysteen xeer ay ku dhaqmaan oo iyaga u gaar ah. Way isu guursan jireen mulkiilo, wiil ilma abtihiin, isku da'na yihiin, ay soo wada barbaareen. Waa Xuseen Miicaade. Ciyaarta loo yaqaan Seylici ciyaar aad loo xiisayn jiray ayay ahayd, oo waqtiyada dugsiga la dhiganayo inta aanan la gelin fasalada ayaa la ciyaari jiray. Mulkiilo iyo Xuseen ciyaartii ay ku soo wada barbaareen, labaduba ciyaartaas si fiican ayay ugu barteen. Waqtigii ay baaluqeen ama ay qaangaareen, waxaa ku habsaday jacayl. Ma xuma oo ha isjeclaadaan. Su'aasha ayaa ah, sidee la isku guursan doonaa? Sababtoo ah reer Seylac waxay dhigteen xeer ku saabsan guurka. Haddii wiilka uu gabadh musaafo ku soo guursado, lacalla waqtigaas uu ku soo noqdo gurigooda, waa la gowraci jiray. Ceeb ma ahayn, waxay ahayd xeer ay ku wada dhaqmaan bulshada reer Seylac. Wiilku marka uu gabadh guursanayo waxaa laga rabaa lacag dhan 50 rubood. Inanta aabaheed ayaa la siinayaa. Sida ayuu ku dhacayaa guurku. Jacaylkoodii wuu hana qaaday, wuxuu noqday mid ay ku dheehan tahay kalsooni dhab ah. Jacaylkooda ayaa fogaaday, waxay isla marayaan meel daran. Wuxuu Xuseen ogaaday inay kala maarmi karin mulkiilo. Wuxuu u sheegay inuu u shaqo tagi doono meel aad u fog, jacaylkana midkeenba dhankiisa kale ha ka ilaaliyo. Axad ayay wada galeen, dardaaran way isku dhameeyeen. Wuxuu ku safrayaa doon shiraac ah. 6 bilood way fadhinaysaa, 6 biloodna way soconaysaa. Wiil kaari ka ahaa doonta u kala guursta Mumbai iyo Seylac ayuu u keenay. Sheegay warqadda u soo dhiibo inuu mulkiilo u keeno, kuwa mulkiilana u soo dhiibtana isaga u keeno. Waqti yar kadib wuxuu shaqo ka helay Mumbai. Dhanka Xuseen, inay warqad ka timaado waxay sugi doontaa 6 bilood. Xuseen Miicaadna sidoo kale wuxuu sugi doonaa 6 bilood. Wiilkii kaariga ka ahaa doonta ayaa u keenay goor barqo ah warqad 6 bilood kadib. Intaas oo dhanna cadceeddii soo baxdaba waxay ka fikiraysaa jacaylkeeda. Xuseen Miicaad warqaddii oo shaqada ku jirta ayuu u dhiibay. Way la soo carartay iyadoo aad ugu hanweyn, iyadoo qalbigeedu signalo bixinayo. Dabadeed qolka ay gaarka u lahayd ayay hoos ka soo xiratay. Halkaasay ku akhrisay fariintii jacaylka. Xuseen Miicaad markay akhrisay way ku raaxaysatay warqaddii fariinta ugu qornayd. 6 bilood waxay isku sii maaweeliyaan, warqadaha ay isku diraan, mid kastaba dhankiisa ayuu la muusoodaa. Aragtidii Xuseen ayay tabtay. Doon kasta oo soo shiraacataba waxay ka filaysaa inuu Xuseen la socdo. Goor galab ah ayay tagtay tikidda Seylac. Waxay ku hadaaqaysay way reer xaasiliyo reer suurba yimide. Doonyaha Mumbai Mumbai baa ka jabtay. Nin ayaa u yimid mulkiilo aabaheed una sheegay in uu siiyo gabadhiisa 50 ruboodna oo lacagna bixinayo. Mulkiilo ayuu u yeeray aabaheed una sheegay in uu siiyo nin. Daawada intaas ay nagu egtahay qaybteena koowaad. Intaas qaybta lamana ku kulmi doono. Waxaan tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo is aragti dambe oo xiiso leh.